habsamidaada socodkiyo hidaha iyo dhaqanka haddii la tartamo hablahaada u qurux badan madaxweyne oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Masar ayaa looga wada hadlay danaha dawladaha Soomaaliya iyo Masar. madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulankan uu la yeeshay dhigiisa dalka Masar Cabdifataax Asiisi waxa isku afgarteen adkeynta xiriirka soo jireenka ah ee shucuubta labada wadan Masar iyo Soomaaliya, horumarinta iskaashi dhinacyo badan oo dhexmara labada dawladood iyo xal u helidda dhibaatooyinka ka jira gobolka gaar ahaan xal u helidda xaaladda cakran ee Suudaan ayaa ka mid ahayd waxyaabihii kulanka la iskula soo qaaday iyadoo ahmiyadda kulankan uu ahaa dardargelinta wadajirka iyo iskaashiga Soomaaliya iyo Masar sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalka Axmed Ciise Cawad oo qayb ka ahaa shirkan. kulanku waxa ahaa kulan muhiim ah oo looga wada hadlay si xoojinta xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Masar. xiriirkaas oo mid taariikhi ah baryahan dambana xawli sii qaadanaya si xoojintiisa. labada madaxweyne waxay isla tilmaameen kulamo hore ay yeesheen waxyaabo lagu heshiiyey iyo sidii loo xaqiijin lahaa oo ay ka mid tahay kaalmada dhan kasta dowladda Masar ay rabto inay siiso Soomaaliya la garab istaagto marka iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ayaa aad labada madaxweyne isula soo qaaday. dhinaca kale madaxweynaha ayaa hadal uu ka jeediyey shirka madaxda ee looga hadlayay arrinta Suudaan ee ka dhacay magaalada Qaahira. waxa uu sheegay in dejinta xaaladda Suudaan ay gobolka muhiim u tahay isla markaana waxa uu ku booriyay shacabka Suudaan in heshiis ay ka gaaraan tabashooyinka jira. madaxweynaha wuxuu ka jeediyay khudbad aad u fiican oo loo bogay. wuxuu ka hadlay kaalinta Suudaan ay kaga jirto qaaradda Afrika iyo IGAD iyo wuxuuna sheegay Soomaaliya inay Suudaan meel gaar ah qalbiga Soomaaliya ay ku leedahay oo aad u garab istaagtay Soomaaliya waqtiyadii la soo dhaafay markii Soomaaliya ay garab istaag u baahnayd. wuxuu u rajeeyay dadka Suudaan inay gaaraan maaragtay himilooyinka ay leeyihiin wuxuuna ku booriyey kulanka dadkii isugu yimid in la garab istaago dadka Suudaan. warmurtiyeed laga soo saaray shirkan looga hadlayay arrinta Suudaan ayaa taageero loogu muujiyay doonista shacabka Suudaan iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee dalka shirkan ka qayb galay la faray qiimeynta xaaladda Suudaan bilaha soo socota iyo dardargelinta wada hadallada Suudaan ka caawiyo horumar iyo xasilooni siyaasadeed oo laga sugayay midowga Afrika. Me and my city Mohammed Tariq Ismaqfosh dhammaan reer Suudaan taageerada ugu badan Suudaan ay joogaan Tariq wadanta joogaan oo isku darsanayaan.